waxaa loo arkayaa tallaabadan inaad ula jeedaan oo doonaysaan sidaad ka dhawaajisay inaad u socotaan doorasho dowladda federaalku aysan saameyn iyo go'aan ku lahayn ma sidaasaad go'aanka u qaadateen dowlad goboleedyada dalka xaq bay u leeyihiin inay iyagu isdoortaan doorasho qabsadaan dowladda koonfur galbeed waxa ay maanta ku dhawaaqday qaraar ay xiriirkii wada shaqeyneed ugu joojisay dowladda federaaliga ee Soomaaliya sida falanqeynaheennii iyo wararkeennii hore aynu ku tabinay iyadoo oo ku sababaysay in dawladdu ay qaaday tallaabooyin lagu khalkhalgelinayo amniga koonfur galbeed saacadihii la soo dhaafayna waxaa jiray dadaallo iyo warar kala duwan oo la xiriiray khilaafka koonfur galbeed iyo dowladda federaalku inuu sii xoogaysanayay go'aanka ay ku dhawaaqday koonfur galbeed waxay sheegtay inay jiraan ciidan lagu abuurayo qaybo ka mid ah deegaanadeeda kuwaas oo dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay arrintaa ka shaqeynayso sida ay koonfur galbeed ku soo saartay war-saxaafadeedkii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqday khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waxa aanu kula hadalnay oo ku jira ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah afayeenka cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed afayeen go'aan baad soo saarteen dowladda federaalka aad sheegteen xiriirkii wada shaqeyneed inaad ugu jarteen maxay ka dhigan tahay taasi dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ariurnimadiisa halka waxay soo saartay saxaafada dheer oo dhinacyo badan taabanayo oo garaqsi u badnaa markii ugu dambeysana go'aan rasmi ay dowladda ka soo saartay in si guud loo hakiyo wada shaqeyntii ka dhaxaysay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sababaha uu cuskanayna waxa weeye dowladda federaalku golaheeda wasiirada gaar ahaan xukuumadda dad ka tirsan oo dowladdii federaalka oo dalka dhan ba dadka Soomaaliyeed ku matashay baa duulaan ku soo qaaday koonfur galbeed Soomaaliya iyagoo abaabul iyo kicin dadweynaha ku dhaqaaqay si dowladnimada iyo jiritaanka dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya meesha looga saaro loo baabiyo maxay ka dhigan tahay jiritaanka koonfur galbeed la baab maxaa aragteen ficilada aragteen waa eed weyn eedine maxay tahay ficiladaan aragnay waxa ugu horeeyo koonfur galbeed waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada dalka ka jira oo dastuurka federaalkana u siinaya xaq gooni ah inay leedahay oo dastuurkeeda ay isku maamuli karto qaybna ka ah dhismaha iyo geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed xubin muhiimana ka ah annagoo tixgelinayna waxa uu noo ogol yahay dastuurka federaalka Soomaaliyeed ee ka koonfur galbeed Soomaaliya oo ah dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya inuu yahay dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliyeed oo hay'adihiisu dowliga u kaamilka u yihiin laba doorasho ka dhacday koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo duruufihii waayahan jiray suurtagelin waayeen in doorashooyin guud ahaan dalka laga qabto in dagaal lagu sameeyo si jiritaanka iyo aashaha dowladnimada koonfur galbeed Soomaaliya meesha looga saaro ujeedada ugu dambeysana ay tahay hebel baan saarayna hebel baan wadanaa koonfur galbeedna hore ay u sheegto waxay tiri doorasho cid yarta waa diyaar marlaari markii lagu dhawaaqay doorasho dalka laga qabanayo muwaadin kasta reer koonfur galbeed Soomaaliya xaq buu u leeyahay inuu wax doorto isna la doorto musharaxiintuna ay deegaanka imaan karaan iyadoo doorashada aan lagu dhawaaqin in abaabul ciidan iyo dhibaateyn iyo abaabul la geliyo deegaankii oo dadkii lagu dhibaateeyo waxaan u aragnay in dowladda federaalka ay fargelin toos ah ku sabaysay iyadoo sharciyad toos ah u haysanin in nidaamka dowlad goboleedka ismaamulkiisa hoose ay soo fargeliso waxaa loo arkayaa tallaabadan inaad ula jeedaan oo doonaysaan sidaad ka dhawaajisay inaad u socotaan doorasho dowladda federaalku aysan saameyn iyo go'aan ku lahayn ma sidaasaad go'aanka u qaadateen ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho maya dowladda federaalku waa dowladii dalka oo dadkii keenay soo doortay oo xildhibaanadeeda iyo senataradeedaba aqalka sare aqalka hooseba geeyay dowladnimada iyo geedi socodka dowladnimada qaybta ka ahaabanaay dowladda federaalku waa dowladii dalka laakiin dowlad goboleedyada dalka xaq bay u leeyihiin inay iyagu isdoortaan doorasho qabsadaan muwaadiniinta dowlad goboleedyada ka soo jeedana cid walba ay deegaankeedii tagto markii lagu dhawaaqo guddi doorasho ay deegaanka ka jirto ay yimaadaan la tartabo halkana lagu kala calaf qaado laakiin iyadoo doorasho loo socdo in abaabul iyo kicin dadweyne iyo propaganda iyo abaabul ciidan oo ciidamada dalka ka jira lambar ahaan waa la yaqaanaa waana sugidda militariga booliska iyo ciidamada asluubta ciidamo ka baxsan oo aan waxyiin aan la ogeyn lagu abaabulo koonfur galbeed waxaan u aragnay inay tahay in laga hor imaanayo dadaalkii dowladda koonfur galbeed ay waday la dagaalanka shabaabkana in lagu wiiqo sidoo kale dowladda federaalku ay culays ku saarayso dowladda koonfur galbeed Soomaaliya si sharciyadeeda iyo nidaamkeeda meesha looga saaro
xasan dooda sheegaysa inaad doonaysaan doorasho inaad aadaan ayaa jirta oo aad saas samaynaysaan waxaadna sheegtay inaad xaq u leedihiin taas miyaad ku dhaqaaqaysaan sharciga noo ballaynayo koonfur galbeed Soomaaliya laba teer bay doorasho ka dhacday intii la yegleelay nidaamkan federaalka ah iyo ahaanshaha koonfur galbeedba waa la isdoortay waana la isdooranayaa goorta iyo munaasabka tahayna waa la sheegi doonaa laakiin doorashadu waxay noqonaysaa mid furan dadku ay wada yimaadaan la doorto laakiin doorasho qoy iyo hebel baan wataa iyo hebel baas la saarayaa way tan door koonfur galbeed ay ka soo horjeedo talaabada xigtay aad qaadaysaan hadda tan aad xil ku joojiseen waa maxay dib baan u tashanaynaa shacabka reer koonfur galbeed iyo dowladooda iyo hay-adaheedu iyaga dib isugu laaban doono talaabada ku xigtaana waa soo sheegi doonaa haddii alla idin dowladda federaalka intiina xiriirka jirin ka hor ma la hadasheen oo arrintan in wax laga qabto oo ciidamadan aad sheegaysaan ee la abuurayo ma kala hadasheen arrintaas isku dayo badan baa jiray madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxda qaranku oo madaxweynaha Soomaaliya ugu weyn yahayba wax badan bay ka wada hadleen waliba si gaar ah madaxweynaha Soomaaliya oo loo sheego madaxweynuhu dalka raada madaxweyne ka koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle iyo Puntland iyo Jubbaland intaba waa dowlado xubno ka dalku waa federaal madax banaanida isteediyada inaad ilaalisaa waajib jiro weeye gaar ahaan midayna koonfur galbeed xaq baan u leenahay inaan isdoorano xaq baan u leenahay dadka reer koonfur galbeed inay doortaan doorashaan u soconay abaabulkan xukuumadda gaar ahaan xukuumadda federaalka golaheeda wasiirada qayb kamid ah ay wadaan oo ah in ciidan haybtooda aan la ogeyn oo midab ahaan markaa fiirisi shaki badan naga galay oo hub aad moodid hubkii dowladda federaalka Soomaaliyeed ee qaranku lahaa in loo qaybiyay tuutii ciidamada qarankana inta baabuur lagu soo daaburo la keeno tuulooyinkii iyo degmooyinkii dowladda koonfur galbeed Soomaaliya maleeshiyada la abaabulay lagu hubaynayo halka waxaa nooga soo baxay marka dowladdu inay faragelin sax ku hayso markaan ogaanay in wasiirada dowladda federaalka qayb kamid ahba banaanka la taagay inay leeyihiin annaga hubaynay annaga siino annaga kharashka ka bixino si aan dowladda koonfur galbeed meesha uga saaro dooda sheegaysa in markii aad ogaateen dowladda Soomaaliya inay iyadu doorasho rabto inay ku qabato oo waqtigeedii u dhamaaday aad sidaas doonaysaan in dowladda qorshayaasheeda uga baxdaan maxaad uga jawaabaysaan ما تاو حبا كما جيران حق وانو لنا هاي تذكر هير كونفور قلبات حلقي اي ايقو ديار سدان اني دورشا قلان اني قلي كران دولة فدرال كده واصح مدحوينو وقت بولي يا وقت سوى قبو كونفور قلبات سوماليا لفسي دي وقت شرعي اها بري هرو دماضي دولة فدرال كافري دورشا ومسياداس فراحة بدن اي سون سعودي بوحا لغو سو مري بل إن لا إلاليو دولة نمدا يبكاين دباتها اي سنقارين ولا إلاليو doorashadii la isla ogol yahayna dadka reer koonfur galbeed dastuurkooda iyo nidaamkooda oo ogolaanay ayagu ay qabsadaan dowladda federaalkuna ay garab ku siiso laakiin kama nafilanaynin dowladdu inay abaabul kala gelinayso dadka aad mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa xasan cabdi maxamed afayeenka dowladda koonfur galbeed oo isagoo ku sugan magaalada baydhabo khadka telefoonka noogu waramayay ku soo dhawow daarul asnaan dental clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah hindiya inaad aad uma baahnid garowe iyo boosaaso ayaad ka heli kartaa ilka maqan daarul asnaan dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh